waa qayb ka mid ah ciidamada AMISOM. halkani waa xerada Jaalasiyaad gaadiidka AMISOM mid ka mid ah. halkani sida garaashka oo kale ayay u ahayd, iyagoo isdiyaariyey kuna tala jira inay baxaan. dhismahani waa mid ka mid ah kuwii ay deganaayeen oo deegaanka u ahaa. waxaa suuragal weli inaadan arkin xeradan daawade. waa suuragal qaarkiin inay arkeen oo ay garanayaan. degmada Hodan uu ka tirsan yahay. dhismahani halka uu ku yaalo xeradii Jaalasiyaad. sida ay sheegeen saraakiil hore, halkan waxaa deganaan jiray ciidamo ka mid ah kuwa Soomaaliya saraakiisha. waxaa sidoo kale ay ahayd meel qaybo ka mid ah halkan lagu tababari jiray ciidamo Soomaaliyeed. dhismayaashu waa halkan waxaa ku dhagan warqad AMISOM ka soo baxday taariikh January 2019 oo ku saabsan gudaha iyo qaabka ay tahay in looga adeego. hagaag waa qoralkii. xafladii ayaa bilaabatay wareejinta. qayb ka mid ah gaadiidka AMISOM. kan waa mid ka mid ah gaadiidka. meeshan waxyaabaha aan ku aragnay saaka waxaa ka mid ah in meel kasta lagu arkayo dab lagu gubay dukumiintiyo. gaadiidkani waa mid ka mid ah kuwa u diyaarsan inay goobtan ka baxaan. halkani waa dhismo caadi ah. ciidamada halkan ka baxaya waxay u badan yihiin Burundi. waatii goor sii horreysay uu sheegay madaxweynaha Burundi in ciidamadiisa Soomaaliya jooga uu kala baxayo. jiingadahaas waxaa ka bilaabanaya xaafadda caanka ee Sona Key la yiraahdo. hagaag hay Nigerian police. waxaa ku jira Cabdixaliim oo isagii yahay askari Nigeria ka yimid police ka tirsan AMISOM. waa askari Burundeysa.
tirsan jooga halkan Soomaaliyeed baanbayda loo yaqaan qaar ka mid ah wariyaasha sugaya inay tabiyaan wararka codkaaga uu galaa kuwan waa qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliyeed baanbayda ama soo dhaweynta qaybta ka ah askari Burundeysa ciidamada Burundi Comandante, Excellency. Fornero con Carlos Negro. ايش عادي سعيد الله يبارك. بوليس نيجيريانا أو الجلك عم يسمى غيب كا kuwan ciidamada baxaya dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan gaadiidka intiisa badan leh إلى بعين تمتر من الجديد كا و